لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. fadhigan waa fadhigii tobanaad ee ka mid ah fadhiyadii noo soo socday ku saabsanay su-aalaha ramadaanka ee aad kala socon jirteen kanaalka xogta salafka. fadhigan insha allahu tacaala waxaan isna maanta kusoo qaadanaynaa 5 su-aalood oo ka mid ah su-aalihii walaalada aynu soo gaarsiiyeen. saa'ilka koowaad waxa uu leeyahay, bisha ramadaanka in la daawdo maxaa la yidhaahaa aflaamta iyo musalsalka ee tifiyada iyo youtubeyada iyo wixii lamid ee laga soo daayo, in dadka ay daawadaan oy waqtiga ku dhumiyaan oy isku maaweeliyaan ma bannaan tahay? jawaabtu waxaan leenahay, horta qofka muslimka ah mar walbaba waxaa laga rabaa in ilaahay ka cabsada subxaanahu wa tacaala, ama ramadaan ha joogo ama bil kale ha joogo. waxaa kaloo laga rabaa waxyaalaha ilaahay xaaraam yeelay subxaanahu wa tacaala inuu iska ilaaliyo. waxaa kaloo laga rabaa waqtiga iyo cumriga la siiy inuu ka faa'iidaysto, maxaa yeelay saacadaha kusoo marayo iyo maalmaha kusoo marayo iyo sanadyada kusoo marayo waxay ka go-on yihiin cumrigaada iyo da-daada ayay ka go-on yihiin. marka inaad ka faa'iidaysato taa waa wax qofka muslimka waajib ku ah oo laga rabo wey. waxyaalaha muxaramaadka marka ilaahay xaaraam yeelay inuu qofka daawdo uma bannaano. suwarka qaqaawan ama waxyaalaha qaawanaashadaba u eg iyo hadallada xunxuno munkarka ah ee laga soo daayo baraha bulshada ama tv-ga iyo wixii lamidga inuu qofka iska daawado horta ma bannaano. musalsalkan marka hadda ay su-aashu ku saabsan tahay hindiga ee inta badan guryaha ka jiro dumarka iyo carruurta ay ku mashaqaysan yihiin, waxyaalaha noocaasa in qofka waqtigiisa uu ku dhumiyo arrin u bannaan ma aha. nabigeenana calayhi salaatu wasalaam gaar ahaan markuu soonka ka hadlaya wuxuu yidhi, man lam yadac qowla azuuri waalcamala bihi falaysa lilahi xaajatan fi an yadaca طacaamahu wa sharaaba. hadallada xunxunka iyo camalka xunka ee qofkaan ka tegin ilaahay subxaanahu wa tacaala wax dan uu ka leeyahay ma laha in uu ka tago cuntadiisa iyo cabbitaankiisa. marka hadallada xunxunka ama ha noqdeen wax lagu hadlo ama ha noqdeen wax la dhegaysto, dhaqanka xunkana ha ka muuqdo ha noqdo mid la sameeyo ama mid la daawado ha noqdee, waa in laga fogaado wey. haddii marka waxyaalo kale oo dad qaqaawan iyo waxyaalo macsiyo iyo xumaan samaynay iyo haddii ay ku sii darsadaan iyadoo haddi waaba kasii daran tahayoo xaalkaada khatar ayuuma noqonay. saas daraaddeed marka waxaan dhihi lahay waxyaalaha noocaas dadka ha ka fogaadeeno, beddelkeeda waqtigooda ha geliyeeno wixii aakhari adduun wax u galaayo ee wax taraayo ha geliyeeno, qur-aanka ha ku akhriyeeno, xuska ilaahay iyo adkaarta ha ku daldaleeno waqtigaas, qof dhibaataysan ha ugu adeegeeno, bulshada ha ku caawiyeeno, wahaakadaa waqtiyada marka sidaa ha ugu faa'iidaysteeno. laakiin in ay waqtigooda waxaan geliyaan oo ay dhahaan marka waxaan ramadaankii baan isku dhaafinaynaa, arrintaas waa nasiib darri wey, mana bannaano, hana ka fogaadeenaan leenahay. saa'ilka labaad waxa uu leeyahay su-aashan, salaatuleylka habeenkii 2 jeer ma la tukun karaa? in xilliga hore gelinka horena taraawiix la tukado hadana hadhow tahajud loo soo kaca, arrintaas balka waran. taraawiix in la tukado ama tahajud la tukado ama qiyaamuleyl ba lagu magacaabay la tukado, arrintaa iyada waa sunno wey nabigeena ay ka suganta calayhi salaatu wasalaam.
culimada islaamka wax isku khilaafsanna ma laha laakiin su-aashii waxay ku saabsantaha in qaybta horena taraawiix wax laga tukado qaybta dambana tahajud wax looga magacdaray laga tukado iyaduna waxaan leenahay culays badan ma laha saxaabadana ridwanullahi calayhim way samayn jireen salaatu tacqiib baana la dhihi jiray midda taraawiixda gadaasheeda la tukado culimada qaarkood oo ku tashadudaano in taraawiix loo kaco marka hore haddana tahajud loo soo kaco aada adkeeyaan waa jiraan laakiin sidaa saxda waxaad moodaa in baabka baab iska furan uu yahay gaar ahaan weliba markii la gaaro 10kan dambo nebigu calayhi salatu salaam cibaadada aad buu u noolan jiri saxaabadiisi iyo salafkii saalixiintana saasay samayn jireen inaan marka ummaddii lagu adkaynin oo loo daayo ayaa fiican ama markaan taraawiixdii intay qayb ka reebaan hadhow qaybtiiday dib ha ka dhammaystireena ama mid cusubba ha la yimaadeene inay iska bannaan tahay ayay macnaha waxa weeye sawaabka ayaad moodaa saa'ilka kale waxa uu leeyahay salaada taraawiixdu gibigeedba inta laysku wada xiro ee aan salaan loo dhexaysiinin ma la yeeli karaa jawaabtu waxaan leenahay maya maxaa uu daliila hadalkuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam salaatu leyli mathnaa mathnaa salaatuleylka waa labalabuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam axaadiidta caaisho iyo keyrkoodba laga wariyo daahirkooda qaar laga fahmaayo in nebigu calayhi salatu salaam uu isku xiriirin jiray salaada sunnada ah ama maxaa la yidhahaa salaatuleylko axaadiistan kale ayaa fasirtay oo taa waa mujmal tanna waa mufasalo wey marka tanaa caddaysay oo waxa laga wada waxaa weeye laba ayuu nebigu calayhi salaatu u tukunay taasaa marka lagu fasirayaa saas daraaddeed marka in taraawiixdii laysku daba xiro oo hal aan loo dhexaysiinin salaan loo dhexaysiinin iyadu arrintaas sax ma aha mana bannaano saa'ilka kale waxa uu leeyahay haddii qofka faqiirka ah ee la siiyo zakaatulfidri la siiyo zakaada ramadaanka markuu dhammaanaya la bixiyo haddii la siiyo asna aad wax kala haysanin ma iskiga sii bixin karaa tii asaga lagu lahay waayahay waxaan leenahay haa way u bannaan tahay horta marka hore waxaa muhiima inaad la fahmo zakaatulfidriga qofka laga rabo waxaa weeye ay ku waajibayso waa qof habeenka ciidda ah iyo maalinta ciidda ah wuxuu cuni lahay asaga iyo carruurtiis iyo dadku mas-uulka ka yahay waxay cuni lahayn wax ka dheeraad ah qofkii haysta ayay ku waajibaysaa qofka marka haddii intaa uu heli karo maskiinnimo darteed iyo faqiirnimo darteedna loo sii zakaatulfidriga loo sii wuu iskaga sii bixin karaa iyadoo dhib ma laha laakiin waxaa muhiim jiddana in aan baraarujinno waxyaalaha dadka qaarkood ay samayn jireen gaar ahaan weliba dadka reer baadiyaha ah oo mathalan hal qof zakada uu bixinayo inay dadkao dhan isku warwareejiyaan oo bimacnaa 10 qof 20 qof 5 qof intay hal meel wada fariistaan hal qof uu marka zakaatulfidri keeno hal qof bisa keenayagow halkaa qof oo keeni baa wuxuu siinaa midka midigtiisa ama kan bidaxdiisa fadhiyo buu wuxuu leeyahy zakaatulfidrigayga waa kana iga qablo igala wareeg waan kaala wareegi haddana kii kale uu sii marsiinaa ilaa kii markay horo bixi ay ku timaado arrintaas waa xiilad wey waa khayaano wey taa maaha wax laga hadlaya taa ma bannaano laakiin waxa laga hadlaa waxaa weeyaan qofkii zakaatulfidriga la sii isaga wuu iskaga sii bixin karaa laakiin intay 10 qof meel fadhiistaan iyo wixii lamid ah inay hal qof zakaatulfidriga isku wareejiyaan haddee intaan kaloo dhan wixii laga rabay masaakiintu wixii ka sugaysay taa iyadoo sax maaha warka waa in layska ilaaliyo wey saa'ilka ugu dambeeya su-aasha shanaad waxa uu leeyahay maxaa ka jira waxyaalaha la leeyahay habeenka ramadaanka ugu dambayso ama maalinta ramadaanka ugu dambayso in ilaahay subxaanahu wa tacaala intuu bishaan dhammaan uu soo xureynay in la eg ama in ka badanba inuu maalinta ramadaanka ugu dambayso ama habeenka ugu dambayso inuu xuraynayo naarta ka xuraynayo maxaa ka jira arrinta noocaas waxsa xadiid ah oo nabigeenna ka sugan calayhi salatu wasalaam arrinta ku soo arooray
oo tilmaamay ma jiraan. jawaabtu waxaan leenahay nabigeenna waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam habeen kastoo ramadaan ka mid ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dad naarta ka xoreynayo, inuu naarta alla dadka ka xoreynayo. tiri gooni lama sheegin, laakiin inuu ka xoreynayo ayaa la sheegay. ama taa way sugan tahay. ama waxaa la leeyahay maalinta ramadaanka ugu dambayso bishii oo dhan intii lasoo xoreynaya si jumlo ah oo duduub ah haddana loo wada xoreynaya in la eg, arrintaas wax ku soo arooray oo saxiix ah oo annagu aan garanayo culimmaduna aan ka maqlin ma jiraan. waxyaale aan sugneen oo soo arooray waa jiraan oo la wariyo oo u qaybsan laba qaybood: wax daciif oo wax oon la cuskan karin, iyo wax baadil waxba ka jirno been abuur ah oo nabigeena calayhi salaam lagu been abuurtay. culimmaduna ay sidaa u caddeeyeen. xadiidka tilmaamayo ama waxa xadiid lagu sheegay ee tilmaamaya maalinta ramadaanka ugu dambayso in intii habeen kasta la soo xoreyn jiri in la-eg habeenka kaligeed la xoreynayo, kaa waxba kama jiraan, baadil wey. culimmadu waa baadil ku sheegtay. waxaa ka mid ah ibni xibbaan uu yidhi waa hada xadiid baadil wey, wax ka jir ma laha. waxaa ka mid ah shawkani inuu yidhi laa asla lahu, wax asal uu leeyahay lama arko. marka culimmadu sidaasay ugu caddeeyeen. intaan anigu ka garanayo wax gooni oo ku soo arooray in maalinta ramadaanka ugu dambayso intii bishoo dhan la soo xoreynay iyo in kasii badanba si duuduub ahaan loo wada xoreynayo, arrinta iyada wax gooni oo ku soo arooray ma laha. keliya waxa soo arooray waxaa weeyaan habeen kastoo ramadaan ka mid a, ramadaan dhalashadiisa laga bilaabo ilaa dhammaadkiisa laga gaarayo, in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naarta ummad ama dad uu ka xoreynayo. sidaa daraaddeed marka warkaas waa war baadil ah, iyadoo meelaha laiskugu dirdirayana waa arkay. fulaan baa meel kusoo qoray iyo sheekh hebel baa laga maqlay iyo taa waxa weeyaan kama dhigayso waxa noocaas inay sax yihiin. insha allahu tacaala fadhigeennii galabta ee aan kusoo qaadanay su-aalaha shanta ah intaa ayaan kusoo koobaynaa. ilahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala in uu cibaadaadka naga aqbalo. ramadaankan gabagabadaana kuwii naarta laga xoreeyo ayaga iyo qaraabadooda iyo waalidiintooda iyo macallimiintooda iyo mashaayikhdoodaba ayaan macna ilaahay weydiisanaynaa subxaana inuu naga dhigo. aafaadka iyo musiibada wareegaysana in ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna dhinac mariyo. ilaahay waxaan weydiisanaynaa kuwii khayrka isu garab istaago isu kaalmeey inaan noqono, khayrkana ha la isgaarsiiyo. hada wabillahi towfiiq, wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam.